الرحيم marka hore ilaahay baa mahadle marka xigtana shirkan halkii la isku nimid wixii ku saabsan salaadka iyo xilliga ciidanka booliska ayaa maartay inoo sheegay waxaan ku diray waxa weeye howlgallada hadda iyo ciidanka boolisku maaha waa ku joogtaa oo soconaya waana la soo shalay oo bisho ahayd shan bishii saddexaad 2018 waa ciidanka boolisku howlgallada ka fuliyay meesha la yiraahdo Sheekh Waafi ay ka soo qabteen dad tahriiba oo dhan 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar dadkaas badarkoodu waxay u dhashay dalka Itoobiya goobtaas waxay noqotay meel calaqalad ah soo taliya xiyeenka hore u sheegay meel calaqalad ah oo dadka tahriibisha lagu ururiyo kadib la kaxeeyo hase booliis waxay ku soo qabteen goobtii iyagoo wada jooga oo fadhiya ay ciidan ku soo qabteen dhammaan tahriibayaashii halka lagu soo qabtay waxa dib loogu celiyay dalkoodii ahaa dalka Itoobiya magafayaashii iyo gaadiidkoodii ciidanka booliisku gacanta ku hayaan kuwa maqalna waa la raadinayaa booliisku ay qosadeen marka magafayaasha waa niman shaqo ka dhigtay وانا من عاديستي وانا من شقة كدقتي إني دتك تهريبيان هسه شقة على ذاك بالو قبتي وحنوقد بدوناتي لا كدقو دعوة دولة محكمة دا يعني أنت هو دولة أنا أقول كور العين باريس تسعته تدوينها كل نول ماشي على ليه شيخ وافي وحنسيبه له عصرنا إني عيدك بوليس كلا شقيان إني waxay soo kale ciidanka booliska sheegaan inay xilka iyo waajibaadka ay gudanayaan inay gacan ku siiyaan sadad kale Soomaaliland ay gacan ugu siiyaan oo ay ka fogaadaan waxyaabaha tahriibta ah oo ah dambi aad iyo aad fool deedasa ku soo gabagabay Sheekh Waafi iyo